waxaan maxkamadda hor keennay taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 2 2019 eedeysanayaasha kala ah Cabdullaahi Axmed Ciise Nuune Taahir Cabdulle Waraf Bidaar Cismaan Saataq Shigshigow Aadan oo soo eedeeyay taariikhdu markii ay ahayd 27 bishii 12 2018 Nageeye Maxamuud Tarabbi oo ku soo eedeeyay inay kufsi u geysteen gabadhiisa Roodo Nageeye Maxamuud Tarabbi uguna geysteen degmada Quraceel nimankaas ayaan waxaan soo waafajinay maxkamadda xukunka ay leeyihiin maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqi doonto hadii alla idmo Saadiq Cabdirashiid Aadan waxaa lagu eedeeyay in uu kufsi ku sameeyay oo qabsaday gabadha la yiraahdo Roodo Nageeye Maxamuud wuxuu ka dhaartay in uusan ku samayn wax kufsi ah xoog inuusan ku samayn ayuu ka dhaartay markuu dhaartay waxaa garsoorku xukumeen in aan qasab isticmaalkaas qasabka xaqi ka laazim lahayn lagu lahayn maadaama uu ka dhaartay ninka la yiraahdo Nuune Taahir Cabdulle waxaa lagu eedeeyay gabadhaas inuu qahran isticmaal u geystay wuu inkiray inuu isticmaal wax la yiraahdo u geystay wuuna ka dhaartay wuxuu ku dhaartay wax isticmaal dhammaantiis inuu hal mid u geysan wax isticmaal u geysan sidaas darteed waxaa la xukumay inuusan isticmaalba u geysan maayeer uu ku dhaartay Waraf ninka la yiraahdo waxaa loo haystay inuu isticmaal qasab ku sameeyay gabadha la yiraahdo Roodo Nageeye Maxamuud wuxuu ka dhaartay in uusan isticmaal qahrana uusan ku samaynin waxaa la xukumay in uusan maadaama uu ku dhaartay dhaarta magaca Ilaahay in aan lagu lahayn xuquuqdii ka laazimi lahayd isticmaalkaas ninka la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Ciise waxaa lagu soo eedeeyay inuu gabadha la yiraahdo Roodo Nageeye Maxamuud inuu isticmaal qahrana ku sameeyay oo inkiray markii horeba in uu isticmaal ku sameeyay dhamaantiba haddana wuxuu ka dhaartay isticmaal oo dhan inuusan ku samaynin maadaama uu ku dhaartay magaca Ilaahay waxaa la xukumay in aan uusan isticmaalin gabadhaas halkaas bayskaas waxaa noogu dhammaaday midkii xaqul aadamkii lagu sheeganayay nimankan waxaan raacinaynaa oo maxkamaddu wixii ay qirnaayeen wixii shareecadu ay u xukuntay ninka la yiraahdo Waraf Xasan Bidaar wuxuu qirtay gabadhaas inuu isticmaalay laakiin ay ahaayeen heshiis sida hadda aad maqlaysan oo ka dhaartay in uusan qahran ku isticmaalin maadaama uu nin yar yahay oo bikri ah oo hadda ka hor guur soo marin sida loo yahay waxaa lagu xukumay xaduud ah in lagu leeyahay in lagu dhufto 100 jeedal iyo 1 sano oo fogeyn ah oo laga fogeeyo deegaanka waxaa kale oo uu qirtay inuu sameeyay kaamara ka duubay gabadhaas sida dadku ay daawdeen markii ay carcaraysay qaylinaysay in uu ka duubay kaamaradaas duubitaankaas waxaa lagu xukumay 6 bilood oo tacsiir ah maadaama ficil xun uu sameeyay oo shaniic ah
oo islaamnimada ku xun iyo deegaankaba waxaa ku xiga ninka la yidhaahdo sadiiq shigshigow waxaa isna lagu xukumay intoo kale maadaamadii ou qirtay gabadhaas in uu ku sameeyey isticmaal zine ah oo ay labadoodu uu qiran yahay in uu kala zinaysteen kana dhaartay kii qasabka ahay kana uu qiran yahay isagana waxaan markaan weydiinay inuusan wax hore soo guursan oo markaa ka hor wax guur oo saxiix oo gala aan la arkin asna waxaa lagu xukumay 100 jeedal oo in lagu dhufto oo ah waxaad ah iyo 1 sano oo taqriibina oo fogayna laga fogeeyo deegaanka iyo taswiirta oo asna qirtay duubitaanka gabadha oo qaawan iyo asagoo qaawan ay is sawireen oo sawirkaas uu ku jiro asna Facebook oo dhigay inaad duubtay baad qiratay waayahay inaad duubtay baad qiratay inaad duubtay asagoo saasa inaad duubtay baad qiratay duubidaas aad duubtay oo gabadhaasi iyo adigu idinkoo qaawan aad isla sawiran tihiin ama khiyaar isu sawira ama khiyaar la sawira waxaa lagugu xukumay 6 bilood oo tacsiir ah xabsi ah waayahay waxaa ku xiga ninka la yiraahdo nuune daahir cabdulle nuune wuxuu ka dhaartay gabadhaas inuu waa isticmaal ku sameeyey wuxuu qirtay gabadha inuu geeyo guriga dhibkaan ka dhacay waxaa kale oo lagu helay nuune gabadha marka lama sawirayay inuu wax ka hayay oo gacan uga hayay meesha dambe oo horteeda sidaas darteed maadaama uu kaamarada wax ka duubay asna 6 bilood oo tacsiir ayaa lagu xukumay xabsi ah waayahay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Ciise waxaa lagu eedeeyay uu ka dhaartay oo ahayd gabadhaas inuu isticmaalay maadaama uu ka dhaartay wuxuu qirtay gabadha inuu damaaciyey in uu markuu u tagay inay qaylisay markay qaylisay inuu u qaatay kalxawaaji markuu qaatayna inay aad u sii qayliday kabacdina uu iska daayay maadaama ay gurigiisiina ahayd meeshu damacaasna uu ku sameeyey arrintaas oo ku galay waxaa asna lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah oo tacsiir waxayna noogu dhammaatay maxkamaddu sidaas